kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan Bulsho Sports TV markan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada ay heynana waxaa kamid ah Toby Adwell ayaa ku sii jeeda horyaalka Qatar AC Milan ayaa mar kale u dhaqaaqday Ziyech Liverpool ayaa wali xoojinaysa dalabka Chiesa intaasi waxay qodobadii warkaatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan Toby Adwell ayaa ku sii jeeda horyaalka Qatar. Toby Adwell ayaa go'aansatay inuu macsalaameeyo kooxdiisa xagaagan isagoo diyaar u ah inuu soo gabagabeeyo muddo 6 sano oo ku sugnaa kooxda Tottenham. Toby ayaa u wareegaya kooxda ka dhisan horyaalka Qatar ee Al Duhaali xilli ciyaareedkan. Laacibka reer Belgium ayaa kooxda Tottenham ku biiray sanadkii 2015 isagoo xilligaasi ka soo dhaqaaqay kooxda Atletico Madrid. Toby Adwell waxa uu soo baxday in uusan shaxda maamulaha cusub ee Tottenham Nuno Espirito Santo uusan ka helinin boos joogto ah xagaagan. Nuno Espirito Santo ayaa wada ololo ku xoojinaya difaaciisa uu horumar muuqdo ka sameyn lahaa horyaalka xilli ciyaareedkan cusub. AC Milan ayaa mar kale u dhaqaaqday Ziyech warbixintaasi waxaa eegaysaa Qamar Maxamed Cumar. Kooxda AC Milan ayaa qorsheynaysa inay mar kale dib u furto wadahadalada ku saabsan saxiixa Hakim Ziyech. Laacibka reer Morocco ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqo garoonka San Siro ee kooxda AC Milan kadib hal xil ciyaareed uu la joogay Chelsea. Inkastoo AC Milan ay xilligan leedahay mudnaan kale oo ah in ay u dhaqaaqaan waxa la sheeganaya in ay dib u eegi doonaan xaaladda Hakim Ziyech bisha Agoosto. Hakim Ziyech ayaa u sheegay saaxiibada uu ku leeyahay kooxda Chelsea in ay la soo xiriireen maamulka kooxda AC Milan bishan. Liverpool ayaa wali xoojinaysa dalabka Chiesa. Kooxda Liverpool ayaa doonaysa inay u soo bandhigi doonaan heshiis ay sanadkii ku qaadanayso 7 milyan oo ganiga xidiga Frank Kessié. Liverpool ayaa diyaar u ah inay gacanta ku soo dhigto laacibkan reer Afrika xilli ciyaareedkan maadaama ay kooxdiisa AC Milan ay diyaar u tahay inay lumiyaan xagaagan. Frank Kessié oo 24 jir ayaa qandaraaskiisa kaga harsan tahay kaliya hal sano kooxdiisa Rossoneri balse wadahadalada heshiis kordhinta xidigan ayaa meel xun maraya waqtigan xilli uu club uu raadis ugu jiro booskii uu baneeyay Wijnaldum oo ku biiray kooxda PSG. Grealish ayaa ogolaaday dalabka Manchester City. Jack Grealish ayaa maalmihii ugu dambeeyay xiiso badan ka helaya kooxda Manchester City. Manchester City ayaa u soo bandhigtay Grealish heshiis aad u weyn inkastoo uu aqbalay kabtanka kooxda Aston Villa. Jack Grealish ayaa la rumaysan yahay in dalab gaaraya 90 milyan oo gani ay Manchester City u gudbin doonto garoonka Villa Park ee Aston Villa ayaa noqon doona meesha dhabta ah heshiiskan. Haddii uu xidigooda Jack Grealish ka tago kooxda waxa ay la soo saxiixan doonaan laacibka Bayer Leverkusen ee Leon Bailey. Man City ayaa ku dhow dalabka Harry Kane qodobkaasi waxaa eegaysaa Qamar Maxamed Cumar. Kooxda Manchester City ayaa sugi doonta Tottenham inay hoos u dhigto qiimaha lagu iibin karo Harry Kane maadaama uu Pep Guardiola aad u doonayo in laacibkan uu ku xoojiyo weerarkiisa xilli ciyaareedka cusub. Tottenham ayaa aaminsan inaysan socon karin wadahadalka ay kula jiraan Manchester United oo weli ku adkeysanaysa inuusan ka tagi doonin waqooyiga London xilli ciyaareedkan. Harry Kane ayaa shakhsiyan doonaya inuu ka faaruqo kooxdiisa xagaaga maadaama uu jaanisyo fara badan uu ka helayo kooxaha kala Manchester United iyo Manchester City waqtigan. Manchester City ayaa ku qanacsan inay sugto qiimo ka hooseeya 160 milyan oo xilligan lagu qiimeynayo Harry Kane. Jorginho ayaa sii joogaya kooxdiisa Chelsea. Kooxda Chelsea ayaa diyaar u ah inay wadahadalo qandaras kordhin ah la furto xidigeeda Jorginho xagaagan. Jorginho ayaa door muhiim ah ka qaatay guushii kooxdiisa Chelsea ee tartanka Champions League xilli ciyaareedkii hore ka hor inta uusan ku guuleysan koobkii Euro 2020 xulkii Talyaaniga. Laacibkan qadka dhexe ayaa qandaraaskiisa kooxeed waxaa kaga harsan 2 sano kaliya. laakiin saxafigii reer Talyaani ee Fabrizio Romano ayaa sheeganaya inay socdaan wadahadalo heshiis kordhin ah Jorginho. Fabrizio Romano ayaa shaaca ka qaaday inay kooxda Chelsea doonaysa inay haystaan xidigan wixii ka dambeeyay sanadkii 2023. inta ku soo gabagabeeyna wararkii ciyaaraha Bulsho Sports TV iyo aniga Munaasimo waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.